soo gudbin doonaa dokumentari ku saabsan waxqabadka wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. xudur ma inaga tahay in oo beej cusub in furto oo in dabcan wal ibaran sanadda 2019 wuxuu ahaa sanad wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed oo ahaa sanad wanaagsan. wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee federaalka iyo anigay kamay kormeerka saanayha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed xafiiska magaalada Baydhabo waxa muuqda waxqabad aad u ballaaran. يمكن ما يصير أصلاً ديجان كخطر قبل الصومالية دوم بقارها قبل الكفر قلبه إن قرصور شو له جاتي waxaa jiray safaro kala duwan oo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo wasaaradda howlaheeda lagu horumarinayay uu ku kala bixiyay Muqdisho ilaa gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. meesha ugu fiican ee cadaalad ka jirto aan leeyahay oo aan qabiil gobolo aan loo kala saarin Soomaalida waa Koonfur Galbeed. xagga shaqaalaha horumar weyn ayaa laga sameeyay wasaaradda waxa shaqadeedii aad u soo ifbaxday sanadda 2019 in awood iyo obsala dareen awoodda dawladda le habo awoodii sharciga dawladda sharci lagu obsada oo hayna nafta bini aadanka iyada raqiisanayadaas. haddaba maxaa u qabsoomay wasiir Maxamed Xuseen Xasan John ku magac dheer waxaad uga bogan doontaan dokumentarigan oo aynu ka diyaarinay waxqabadka iyo shaqooyinka wasaaraddu ay ku tallaabsatay. anoo ka wasiirka cadaaladda may ballan qaaday in aan qaybtay dhibado doono wasaaradda cadaaladda shaqaaladeena bal ku qaado doona in iyo qayb ku qaadan wali rooga gobolka Bakool iyo wali bay rooga iyo wali rooga shaqalaha hoose web qaado doonaan. waxaa si wada jira dokumentarigan halkan ugu soo wada jeedin doona anigoo ah Muxudiin Xasan Maxamed Xusni iyo anigoo ah Maxamed Abdicasiis Salaad. Somali dum. Surdu badi sarif